daawadayaal markii dagaalada sokeeye ay dalkeena ka dhaceen oo aynu markaasi islaynay oo qaxa iyo dhibaatooyinku ay dhaceen duur joogtii ayaa iyaguna qaxay oo wadamada dariska aaday si markaasi ay u helaan nabadgeliyo iyo waliba daryeel wadamada dariskuna waa ay ka faa'iideysteen oo daryeel ayay u fidiyeen beero ayayna u sameeyeen si markaasi loogu xanaaneeyo iminka oo dalkeena nabadi ka xasishay waxaa la sheegayaa oo warbaahinta caalamku si weyn u hodal hayaan duurjoogtii dalka ka qaxday oo ku soo laabanaya bal saaxiibkay daahir cabdullaahi cali war arintaasi ku saabsan ha inuu eego burburkii dawladii hore ee Soomaaliya kadib dalku waxa uu galay dagaal sokeeye kuwa oo ku fiday inta badan gobolada dalka waxaa dalka ka qaxay kumanaan qoys kuwaas oo ay qaramada midoobay xiriyo qaxooti uga oday gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya shacabka ka qaxay dalka waxaa barbar socday ugaara aad u fara badan iyo duurjoog ay Soomaaliya lahayd oo iyaguna ka cararayay colaadaha iyo rasaasta culus ee ay isku adeegsanayeen dhinacyada ku dagaalamayay dalka Soomaaliya waxa ay gashay marxalad ka bedelantii hore waxa ka hana qaaday nidaam dawladnimo waxa bilaabmay inay dib u soo laabtaan qaxootigii 20 sano ka hor ka qaxay dalka waxa sidaas la mid ah bilaabmay inay dalka ku soo laabtaan ugaartii iyo duurjoogtii ka hayaantay dalka Soomaaliya warbixino kala duwan oo ay daabaceen qaar kamid ah warbaahinta ayaa lagu sheegay in ugaar fara badan iyo duurjoog ku noolaa dalka Kenya ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya iyagoo raxan u socda ayna ka soo talaabayaan soodinta ay Kenya la wadaagto Soomaaliya ugaarta iyo duurjoogta kale ayaa intooda badan waxay soo gaarayaan gobolka Jubbada Hoose oo leh dhul hawd oo ay ku noolaan karaan duurjoogta soo laabanaysa waxa kamid ah maroodiga oo ay Soomaaliya ugu dambeysay 20 sano ka hor gobolada Jubbaland waxay ahaayeen goobaha ugu badan ee Soomaaliya uu kaga noolaan jiray maroodigu Line Douglas Hamilton oo ka tirsan urur lagu magacaabo badbaadinta maroodiga oo silsilad yar oo lagu xiro maroodiga oo tixraaca u sameeyay maroodiyaasha Afrika ayaa sheegay in mid kamid ah maroodiyadii ku noolaa gobolka Tana River ee dalka Kenya uu gaaray Soomaaliya kadib 100 kiiloomitir oo uu ku socdaalayay dhul hawda maroodigan ayaa arbe daadiisuna ay gaarayso ilaa 30 sano waxaana calaamada tixraaca loo sameeyay bishii December ee sanadkii tagay xilli uu joogay gobolka xeebta ee Tana River balse waxaa la sheegay inuu galay socod dheer oo lama filaana isla markaana toddobaadyo ka hor uu gaaray Soomaaliya isagoo ka talaabay soodinta u dhaxaysa labada dal soo laabashada ugaarta ayaa muujinaysa in Soomaaliya ay haatan tahay wadan ka soo kabanaya dagaaladii sokeeye isla markaana nabadgelyadiisu ay soo hagaagayso taana ay keentay in ugaar fara badan oo ka cararayay rasaasi la isweydaarsanayay iyo colaadihii dalka ka jiray ay galeen dalalka Soomaaliya dariska la si ay u helaan nabadgelyo balse haatan dib ugu soo laabanaya meelihii ay kal hore ka hayaameen